haddii qof waliba laga waraysto marxaladiisii caruurnimada dadka qaar marka ay noloshoodii hore ee ciyaalnimada aad ay u wanaagsanayd kuwa ayaa silac iyo rafaad dil joogto ah kusoo barbaaray badanaa caruurta silaca iyo dhibka kusoo kora waa caruurta labadoodii waalid ay kala tageen ama kusoo koray meel ka baxsan halka uu waalidkoodii uu ku nool yahay waxaase naadir ah oo la arkay caruurta waalidkoodii la nool xitaa in silac iyo rafaad iyo nolol xanuun badan in ay waalidkoodii kala kulmaan muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa qisad dhaba caruur la soo barbaaray hooyadoodii balse hooyadoodiina ay noqotay mid aanan kala jeclayn caruurteedii si daran oo silac ah heer laga naxo ayay caruurteedii gaarsiisay waxaa hal guri ku wada noolaa 6 caruur ah iyo hooyadoodii aabbahoodiina waa hore ayuu dhintay caruurtani 2 ka mid ah ayaa wiilal ahaa 4 kale ee soo hartayna waxa ay ahaayeen gabdho hal gabar ayaa qoyskani ugu weyneed qisada muuqaalkanina waxaa ka sheekeeyay maamadani xaasidka ah canugeedii oo ugu dambeyn weynaaday kana badbaaday silaca iyo rafaadka hooyadiisii walaalihiisii kale ay ku haysay maamadani dabeecad ahaan waxa ay ahayd mid aanan caruurta yaryarka ah u naxariisan haddii ay seexan waayaan garaac ayay caruurta ku hurdisiin jirtay qaabab kala duwan oo caruurta lagu silciyo sida in canug lagu xujeeyo gacmihiisii in uu sara u qaado ilaa canuga uu ka daalo ciqaab noocani oo kale ah ayay ku xukumi jirtay haddii ay cuntada diidaanna maamadani si qasab ah ayay cunto ku siin jirtay waxyaabahani marka dusha sare laga fiiriyana waxaa laga yaabaa in qof uu u fasiro qaab wanaagsan sida korsiimada caruurta maamo ka fakaraysa in ay tahay sidani ayayna iska rumaysnayd maamadani saqdhexe habeenkii haddii ay soo toosto aragtana in ciyaalka mid ka mid ah uu soo jeedo dhammaantoodii inta ay soo wada kiciso ayaa iyada oo ku eedeynaysa in hurdo jiliin ah ay samaynayeen oo kale ayaa inta ay saf ay soo geliso ayay ilaa waaga uu ka baryo ayay soo jeed fadhi ah ku ciqaabi jirtay waxa ayna haysan jirtay karbaash u qaas ah oo caruurtani lagu garaaco caruurtani ma aysan ahayn kuwa guriga ku xabisan wax ay aadi jireen subaxii iskuul waqti kooban ayayna u ogoleed in ay banaanka ku soo ciyaaraan balse canugii isku soo daahaa caruurta oo dhan waxa ay ogaayeen in uu la kulmi doono ciqaab aad u daran si kooban caruurta oo dhan si daran ayay maamadoodii uga baqi jireen xitaa heer waxa ay gaarsiin jirtay caruurta si ay uga cabsiiso qaladaad dambe si aysan u sameynin inta ay saf ay soo wada gelisa caruurta ayaa inta ay qof ag istaajisa darbi ayay mindi ay ku tuuri jirtay iyada oo geesaha kaga dhufanaysa waxa aad ku fakartaa canug lagu qasbay in uu darbi ag istaago kadibna lagu soo tuuray mindi iyada oo hadafka laga dhiganayo madaxa dushiisii gacanta geeskeedii hadba lugihiisii dhinac canuga si uu u argagaxa darteedii ciqaab noocani oo kale ah ayay ku samayn jirtay waalidkuna haddii uusan ahayn mid wacyigiisii iyo aqoontiisiiba ay sarayso xumaan waliba ayaa ka suurtooda isaga oo u arkaya xumaantaba mid uu ku toosinayo mustaqbalka canuga sababtoo ah ma yaqaana waalidka wax la dhaho trauma iyo in mustaqbalka canuga ciqaabtani ay wax u dhimi karto nidaamkani in canug la soo hor istaajiyay darbi kadibna la argagaxgeliya canuga iyada oo mindi lagu soo tuurayo waxa ay maamadani ay ku dhaawacday gabadheedii tii ugu weyneed markii ay aragtay in uu dhiig uu ka qubanayo si degdeg ah ayay faashad ugu xirtay waxa ayna gabadha ay ku eedeysay in ay rabto in maamada qof xun ay ka dhigto dambiga oo dhanna waxa ay dusha ka saartay gabadha waayo gabadha ayaa isdhaqaajisay caruurtuna mid waliba waxa ay ku qasabtay in uu aamuso haddii kale sidani ciqaabta ayaa u dambeyn doonta inkastoo gabadhani dhaawac weyn uusan ka soo gaarin haddana maamadani faashadani ay ku xirtay daraadeedii waxa ay sabab ay u noqotay in gabadha muddo kadib ay iska fiicnaato caruurtani daa'ima marka ay gurigoodii ay joogaan waa kuwa niyad jabsan iyaga iyo hooyadoodii wax wada sheekaysi ah kama dhexeeyo kaliya wax ay hal mar maamada ay u daartaa telefishan caruurta oo dhanna waajib
ayay ku noqotaa in telefishinka ay daawadaan. Maamadu marka ay rabto in ay bannaanka aado, albaabka sare ayay ku soo xirtaa, bannaanka ayayna iska soo wareegtaa. Waxa ay guriga imaadaa iyada oo miyir daboolan oo sharaab badan iska soo dharjisay. Waana marka ay carruurta ay aadka ugu daran tahay oo hooyadu aysan kontarooli karin xanaaqeedii iyo tijaabooyinka fantasy ahaan ee ciqaabta carruurteedii ay la damacsan tahay in ay ku samayso. Sanado kadib, gabadhii weyneed mid ka mid ah ayaa iskuulka macallin ka wareysanaya xaaladeedii guriga ayaa waxa ay u sheegtay in ay jeceshahay iskuulka booska guriga. Sababta marka uu macallinka uu weydiiyeyna in ay hooyadeedii ay ku qasbayso in badanna ay disho ayay gabadhani sheegtay. Macallinkii inta uu argagaxay ayaa waxa uu u sheegay maamulka iskuulka, kadibna laamaha dowladda ee u qaabilsan ilaalinta carruurta ayaa lagu wargeliyey. Maalintaasi oo dhanna gabadhii weyneed guriga ma aysan imaanin. Sida caadada ahaydna hooyadani waxba muhiimada carruurteedii ma aysan siin jirin. Kaliya waxa ay u diyaargarowday saacadii loogu talagalay gabadhii weyneed in ay guriga soo xaadirto markii ay aragtay in aysan imaanin maalinta, sida ay u ciqaabi lahayd iyo karbaashka halka ay kaga dhufan lahayd. Balse markii la gaaray fiidkii ayaa waxaa albaabka guriga soo wada garaacay dad ka socda xafiiska dowladda ee xaafadaasi iyo gabadhii oo wada socda. Markii ay guriga ay soo galeen, waxa ay bilaabeen kooxda xafiiska dowladda ka socda in ay carruurta mid ay u wareystaan sida hooyadiinii ma idin dishaa. Carruurtii marka ay arkeen hooyadoodii oo agtaagan, jawaabihii oo dhanna si been ah ayay uga jawaabeen. Hooyadeenii nama disho, hooyadeenii waan jecelnahay. Jawaabo aad u wanaagsan ayay ka bixiyeen, maadaama carruurtanina dhaawac ka muuqda xagga iyo jidhka uusan jirin. Waxa ay kooxdani ay ku qasbanaadeen in guriga ay isagaga tagaan. Maalintaasi kadib, maamadani inta ay xanaaqday ayaa gabadhii dacwada ka gudbisay ee weyneed ayaa waxa ay ku soo xirtay guriga meel ka mid ah, silsilad dheer ayayna ku xirtay, afkana sharooto ayay ugaga xirtay. Waxa ay ku fikirtay gabadhani ciqaabtan ugu daran in ay gaarsiiso. Waxaa la sheegaa ilaa sanado in halkaasi gabadhii weyneed ay ku xirneed. Iskuulka marka ay ka soo noqotaba, sida loo xiro maalinta xigta ayay sidaasi iskuulka ay ku aadi jirtay. Heer gabadhii waxa ay gaartay in aysan ka hadlin arrinta hooyadeedii, sababtoo ah cid bulshada ugu dhow hooyadeedii ma jirto, mana ay taqaano meel ay aado. Xafiiska dowladda dadka ka socdayna waa kuwa rumaystay carruurta su'aalaha fudud ay weydiiyeen, sidaasi ayayna sabab ugu noqdeen iyaga oo aanan ogeyn in ciqaabta gabadhani ay ku laba jibaarmato. Sidaasi darteeda, haddii kooxda dib dambe ay ugu noqoto, ciqaabta in ay ku sii laba jibaarmato ayay ka baqday. Gabadhii sida ay halkaasi ugu xirneed, maalin ayaa laga soo furay iyada oo aad u jaraynaysa. Hooyaduse si ay u cabsi geliso gabadhii ugu yarayd qoyska ayaa inta ay gacanta ay ka saartay biskoolad ammaanka loo furay ayaa waxa ay ku dhahday ku qaba gabadhani. Haddii ay isdhaqaajiso, fasax ayaad u haysataa inaad ku dhufato. Canug yar oo aanan aqoon u lahayn biskoolad oo weliba ammaanka loo furay, amarna lagu siiyo dhaqdhaqaaq haddii gabadhani ay samayso in uu ku fasixi karo. Xaaladani halista badan ayay isku dayday in ay ku aamusiiso gabadhani sanadaha badneed guriga hal meel ku xirneed. Daqiiqado badan biskoolad ammaankeedii uu furan yahay, gabadha weyneed sida ay ugu aadisneed ayaa hal mar carruurta mid ka mid ah waxaa ka dhacay alaab uu jikada uu ka qaadanayay. Gabadhii yareed ee biskoolada ammaanka u furan loo dhiibayna qalqal ayay dareentay, kadibna biskooladii ayay riday. Gabadhiina sidaasi ayay xabad ugu dhacday, balse ma aysan dhimanin, waayo alaab marka ay si lama filaan ah jikada oo kale iyo meelaha lamidka ay ku dhacdo, dadka oo dhan ayaa naxa. Biskooladii ayaa inta ay maamadani ay ka qaaday gabadhii ayaa waxa ay bilowday dhiigga dhulka ku daatay in ay tirtirto. Gabadhanina dhaawacani khafiifka ee soo gaaray ayay bilowday in ay faashad ay ku xirto, sida dhakhtar oo kale in ay guriga ay ku dabiibto, bannaankana aysan u qaadin ayay ku fikirtay. Waxa ay ka baqanaysay in dadka bannaanka ay ogaadaan, kadibna sidaa in xabsi ay ku mutaysato. Ugu dambeynna muddo bil ah gabadhani iyada oo jinkeedii xabad ay ku jirta ayay iska caafimaaday si mucjiso ah. Wax weyn oo halis caafimaad ah ama jirka qayb ka mid ah oo xabadani ay burbursay ma aysan jirin, balse
balse gudaha jinka ayay u fadhiisatay. Markii ay caafimaadayna gabadhani lama cafinin, sidii ayaa silsiladii loogu celiyay. Sanad marka ay sidaa halka ay ugu xirnaatay ayaa maamadii waxaa la qumanaatay hadallada calaacalka ah ee gabadhani mar walba ay ku soo celin jirtay, sida hooyo ifasax hal mar xitaa gurigani kuma soo noqon doono, cid aan u sheegi doonana ma jirto waxyaabaha gurigani ka dhacay. Fikirkani ayaa ugu dambayna maamadani la qumanaaday, waayo daqiiqad walba guriga gabar meel ku xiran oo calaacalkeedii aanan la dhagaysan karin sida ay u maqli jirtay. Ugu dambayna fikirkani ayaa la qumanaaday, waxa ay damacday in guriga oo dhan ay ka saarto. Sida asalka ahna hooyadani waxaa laga yaabaa in qof uu isdhaho miyaysan lahayn dareenka naxariista ee maamanimada, balse maamadani ma aysan ahayn mid diyaar u ah in caruur ay dhasho. Iyada oo sidaa ay tahayna haddana waxay ahayd maamo psychotic ah oo ku raaxaysata garaaca dadka kale. Si kastoo ay noqotaba, maamadani aanan kala jeclayn caruurteedii, sidani ayay u ciqaabi jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah ayay damacday in ay gabadhani ay iska fasaxdo, cudurdaarkeediina ay wax ka soo qaado, balse waxaa u cuntami weysay maamadani haddii ay fasaxdo sidani, kadibna daliil ay gabadhani ka dhigato xabadda jinkeedii ku jirto in ay hooyadeedii ay ku dhufatay. Sidaasi maamada dambiile ayay ku noqon kartaa. Waxa ay damacday in ay gabadha ay suuxiso, kadibna iyada oo maamadani aqoon caafimaad aanan lahayn sidii kol hore oo kale waxa ay ku fakartay in xabadda ay ka soo saarto kadibna ay iska fasaxdo. Balse si la yaab leh oo caqliga ka fog, markii ay tillaabadani ay ku dhaqaaqday iyada oo aqoon caafimaad iyo xitaa qalabka aasaasiga ah ee loo baahan yahay in qof xabad loogaga soo saaro iyada oo wax aqoon ilaa heerka gaarsiisan aanan lahayn, ayaa waxa ay ku fakartay in ay gabadha ay qasho kadibna ay ka soo saarto, sidaana ay ku tusho. Balse marka ay sidani ay ku dhaqaaqday, gabadhii waa ay dhimatay. Maalmo kadib wiilasheedii ayaa waxa ay ku amartay in gabadhani ay la soo qaadaan. Kadibna gobol kale inta ay tageen ayaa meel cidla waxa ay ku amartay wiilasheedii in ay meydka dhigaan, kadibna benziin ayay ku amartay in ay meel walba ay ku daadiyaan, kadibna taraq ayay ku gubeen si haddii meydka la helay xitaa heerka gubashada aawadiisii aanan la aqoonsanin. Nasiib wanaag falkani dembiga ahna lama ogaanin. Gabadhii waxaa lagu tiriyay qof dhumay oo xitaa maamadu ay ka walwalsan tahay. Sida dabiiciga ahna maamadani qof ay ku xanaaqdo ay ciqaabto ayay daa'ima ay jeclayd in ay hesho. Gabadhii weyneed ee sanadaha badan guriga dhexdeedii ciqaabta daran la kulmi jirtay ee meel ku xirneed, mar haddii ay dhimatay benziinna lagu shubay oo la gubay, gabadhii yareed ayuu kolkani safka uu soo gaaray, waayo maamadani iyada oo qof aanan ku ama qof aanay garaacin ma aha maamo joogi karta. Ugu dambayna gabadhii yarayd waxa ay dhimatay iyaduna iyada oo armaajo dhexdeedii lagu dhex qufulay, meel ay ka neefsato ayay weysay. Balse kolkani wiilasheedii oo aad u xanaaqay darteedii waxa ay ka hor imaadeen ficiladani sida joogtada ah maamadoodii ay u samayso. Waxa ay diideen in ay ku caawiyaan ficilkani maamadoodii ay samaysay, balse biskoolad ayay madaxa ay ka saartay sidii gabdhaha walaashoodii ku dhacday oo kale iyaguna in ay ku dhici doonto. Balse kolkani iyaga oo dhexda socda oo meydka walaashoodii wada ayaa dhexda laga soo qabtay. Waxaa la arkay meydka ay wadaan, waxaana kolkaa wiilashii u suura gashay in ay booliiska ay ka baxsadaan, waayo si lama filaan ah marka uu hal booliis uu arkay dhacdadani, kadibna uu amar uu ku siiyey in ay istaagaan inta aanay booliis kale uusan soo gaarin, waxaa sahlanaatay in wiilasha iskaga baxsadaan. Waxaa halkaa gacanta lagu soo dhigay maamadii. 10 sano kadib wiilashii halka ay ka baxeen waa la waayay, balse wiilashani mid ka mid ah isaga oo magaalo kale ku nool, shaqo kalena halkaa ka bilowday, fisikaal ahaana in badan isbedelay, magaca xitaa bedeshay, ayaa ugu dambayn isagana la soo qabtay, weliba isaga oo goob shaqo ah jooga. Balse wiilashani marka la dhageystay waxaa la ogaaday in aysan awood aysanba u lahayn in ay soo sheegaan waxyaabaha gurigoodii ka socday, balse taama aysan ku badbaadin. 3 sano ayay xabsiga ku sugnaadeen. Maamaduse iyada oo waayeel
baaba'ay ah ayay ilaa iyo hadda xabsi ay ku joogtaa. Qisadanina waxaa lagu tilmaamaa hooyadii shaydaanka ahayd ee ciqaabta carruurteedii ku raaxaysan jirtay. Xanuunada ku raaxaysashada qof jabkiisii ama xanuunkiisii ma lahan wax daawo ah, sida waayeel sambirixooday qof dhalinyaro ah si qasad la'aan ah inuu ugu qoslo habka uu qofka waayeelka u dhacay. Inkastoo psychopathic aysan ahayn, haddana ku raaxaysashada xanuunada dadka kale waa cudur halis badan. Muuqaalkanina waxa aynu ka faa'iidi karnaa garaaca carruurta iyo in laga cabsiiyo marnaba carruurta in aysan ku toosin. Bilcagsi, dhaqanka foosha xun ee laga wacyigelinay ayaa carruurta sii laba jibaaraan. Maamadanise ficilada iyo ciqaabta carruurteedii ay ku samayn jirtay daraaddeedii ayaa ilaa cimrigeedii inta ka dhiman oo dhan xabsi ay ugu juri doontaa. Wiilasheedii qaar ka mid ahna waa kuwa bannaanka xor ku ah oo la fasaxay, balse marka ay ciqaabta xabsiga ay soo dhammaysteen.